gudoomiyaha gobolka Saraar Cali Maxamed Faarax ayaa maanta xafiiskiisa kulan ballaaran kula qaatay ururka haweenka qaranka ee gobolka Saraar. kulankan ay ka soo qayb galeen guud ahaanba qaybaha kala duwan ee ka kooban yahay ururka haweenka qaranka ee gobolka Saraar oo isaga kala yimid magaalooyinka Caynaba, Wadaamago iyo Oog. ayaa waxaa munaasabadaasi sidoo kale barasaabka kala qayb galay ku-xigeenka gudoomiyaha golaha deegaanka degmada Caynaba Nuuriid La Ducaali, xogayaha dowladda hoose ee degmada Caynaba Cumar Maxamuud Muuse iyo mas'uuliyiin kale. kulankan oo ujeedadiisu ahayd isxog waraysi iyo sidii la isula jaan qaadi lahaa isla markaasina wada shaqayn ballaarani ay u dhexmari lahayd ururka haweenka qaranka iyo guud ahaanba maamulka heer gobol iyo heer degmo ee gobolka Saraar. waxaana ugu horreynba munaasabadaasi ka hadlay gudoomiyaha ururka haweenka qaranka ee gobolka Saraar Marwo Aamina Aadan Nuur iyo xubno kale oo iyaguna ku hadlayay afka ururka haweenka qaranka ee gobolka Saraar, kuwaasi oo ku dheeraaday shaqooyinka kala duwan ee ururka haweenka qaranka ee gobolka Saraar uu qabto iyo doorka muhiimka ah ee ururkani uu kaga jiro horumarka gobolka Saraar. waqtiyaalo aan haddana ururku dhisnay haddana aan ka shaqeynay arrimaha nabadgelyada metelimka xogayaha dawladda hoose oo kale gabdhaha hadda meesha fadhiya iyo anigu halkan hawlihii aanu ka qabanay ilaa iyo waxaan tagnay kalshaale waan tagnay inta aniga igan waan digay oo markaa ka hawlgelayna inaan nabadgelyada gobolka ka shaqeyno. marka waxa weeyaan horta anaga waxa weeyaan ururka qaranku ururka caynka u shaqeynaya waana ururka muwaadinimada ku shaqeynaya qarannimada ku shaqeynaya Soomaaliland ayay saddexda imika inoogu xigta haduu yahay oo iyo Wadaamago iyo Caynaba waa kuwaas horta ay xubnihii ilaa 40 xubnood oo fulinta aba fadhiya wax ka tagayna ma jiraan wax walba dhinacaynayo aan soo jiidanay anigu baa meesha walba ku dira anagu de maxaan ku leeyahay gobolka yagii baan u shaqeynay dadkayga baan u shaqeynay nahay bulsho isku xidhan baan nahay hablaan leenahay dhaqana inamo dhalinyaro nooc walba iyo odayaal. gudoomiyaha gobolka Saraar Cali Maxamed Faarax, maayir ku-xigeenka degmada Caynaba, xogayaha dowladda hoose iyo mas'uuliyiin kale ayaa iyaguna ka mahadnaqay dadaalka ballaaran ee ururka haweenka qaranka ee gobolka Saraar uu mar walba la garab taagan yahay maamulka heer gobol, heer degmo iyo guud ahaanba Soomaaliland sidii looga wada shaqayn lahaa horumarka gobolka. waxay sidoo kale mas'uuliyiintani si ballaaran uga amaaneen ururkan iyo mas'uuliyiintoodaba sida ay mar walba uga qayb qaataan dhaqdhaqaaqyada dhanka horumarka ah ee ka socda gobolka Saraar. gudoomiye nimanka waxaan leeyahay ururkan runtii waa urur ballaaran oo dhabar waa gobolka dhinacyada badan ee arrimaha bulshada uga dhisan wax kasta oo hawlo yimaada isaga ayaa lambar 1 ah haddaan idinka lahayn wax yani dhaqaaqaya ma jiraan. ujeedada ay isugu nimidna waxa weeye inay dantii qaranka sida imka Aamina uga dhawaajisay ama dumarkii ka horreeyay danta qaranku waa laba taabtaan oo